maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ka taagneed xiisad ka dhalatay shaqo joojin uu gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed uu ku sameeyay duqii degmada Beledweyne Cali Cabduqaadir Faarax hayeeshee waxaa maanta si rasmi ah duqa degmada Beledweyne xilka uga qaaday wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle iyadoo duqa cusub ee degmada Beledweyne loo magacaabay Qadar Xasan Afrac wareegtada ka soo baxday xafiiska wasiir Maxamed Cali Caadle ayaa lagu sheegay in kadib markii uu duqa degmada Beledweyne uu ku dhaqaaqay amar diido iyo xil gudasho la'aan iyo soo jeedin ka timid xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay gobolka Hiiraan in xilkii laga qaaday duqii degmada Beledweyne Cali Cabduqaadir Faarax Cali Sandere Cali Cabduqaadir Faarax ayaanan weli markaa ka hadla xilka qaadis ee uu ku sameeyay wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladda hoose ee maamul goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle Ibrahim Maxamed Xasan Ibrahim Jamuni magaalada Beledweyne.